إرم ذات العماد magaaladani waa mid la isku khilaafsan yahay ma magaaladii Qowmucaad baa mise waa magaalo ay degi jireen qabiilo ka mid ah kuwii Qowmucaad ee uu Ilaahay u soo diray Nabi Huud alayhi salaam iyadoo ay jirto in magaaladani Quraanka lagu sheegay laakiin culimada muslimiinta ah iyo qeyrkooduba way isu khilaafsan yihiin jiritaanka magaaladani kadib markii uu geeriyooday boqorkii reer Caad ee lagu magacaabi jiray Shadiid bin Caad in uu magaaladaasi la wareegay walaalkiisa Shudaad wuxuu ahaa mid isla qabweyn kuna takrifilay xukunkiisa wuxuuna Ilaahay u diray Nabi Huud si uu ugu yeero rumeynta Alle balse Shudaad wuxuu Nabi Huud ku yiri maxay tahay abaalmarinteeda haddii aan eebba rumeeyo Huud alayhi salaam wuxuu ugu jawaabay in abaalmarintiisu tahay jano laakiin wuu diiday wuxuuna ka faanayay Ilaaha qaadirka sidaas daraadeeda wuxuu dhistay beero oo ugu magac daray Iram Dhaatil Cimaad waxaana la sheegay in goobtaasi ku taalo saxaraha Imraan Quatar ee koonfurta boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo waqooyiga Hadramout ee Yemen Eldorado waa ciwaan ay siiyeen ilbaxnimadii koonfurta Ameerika ka hor qabsashadii Isbaanishka dhowr boqor iyo hogaamiyayaal iyo wadaadooyin caan ka ahaa gobolka waxaana la sheegay in boqorada iyo hogaamiyayaasha iyo wadaadaduba ay aadi jireen dhul aan la aqoonin oo loo yaqaan Landi Manoya waxaana la yiri dhulka Manoya waa dhul ay ilaaliyayaashu iyo adoomaheedu aysan dhaheen kuwa bini'aadanimo u leh madaxdan aan soo xusnay dhulkuna waxaa ka buuxay dahab lacag iyo dhagaxyo midka deeqsiga ee magaaladan khuraafaadka ah wuxuu leeyahay qalcad oo ay ugu magac dareen magacyadooda tani waxay cadeen u tahay sida ay ugu ilaalinayaan adduunka kale sahmiyayaal badan oo reer Yurub ah gaar ahaan Isbaanishka Ingiriiska iyo Boortaqiisku laakiin ma aysan helin jasiiradda Roog maalmihii dawladii Cabbaasiyiinta gaar ahaan xilligii Haaruun al-Rashiid waxaa jiray mid ka mid ah hogaamiyayaashii badmaaxiinta oo lagu kala aragti duwanaaday magaciisa iyadoo qisooyinka uu kaga caanbaxay Zandabaad sida caadada u ahayd mid ka mid ah safiradiisii wuxuu ka soo dhaqaaqay gacanka Carbeed ilaa jidka Cumaan halkaasna wuxuu kaga helay meel aad uga fog wadamada Islaamka ilaa uu gaaray bartamaha badweynta Hindiya wuxuuna ka helay jasiirad ay joogaan shimbiro aad u ballaaran oo gaaraya cabirka maroodiga waxaana loogu magac daray magaca Roog marka la fiiriyo buugaagta Carbeed laakiin Carabta maahan kuwii ugu horeeyay ee soo ogaada sida ilbaxnimada xeebaha Hindiya u ogaatay shimbirahaas loogu magac daray Phoenix Sintibaadna wuxuu buugaagtiisa ku qoray jiritaanka jasiiradda laakiin xilligan casriga ah jiritaankeeda lama cadeen